السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسولو هذا داوديال لما رئيس مالنا وحان ليهي والفيديو شير قرية او قارسية كوا كسو دولي مقالة الله سعنود قبل كسول كواس او كحن هرماركا كتشراي قبل كسول انتي صدقي سنوات اي سومالنا نمطهيد oo dhisantay oo leekaatay Hargeysa ayay ku soo duuleen niman sheeganaya inay la haybiyihiin reer Laascaanood wax la haybiyin ma jirto taas oo ay ka xuyeen horumarka iyo waxbarashada iyo ganacsiga ka socda iyo guryaha ka dhismay iyo sida u balaaratay Laascaanood ayay ka xuyeen soo dhawaada baan leeyahay barnaamijkan oo aan ku falaaqeyn doonaa anagiyo Shaafici Hartop oo aan kula kulmay tuulo Samakaab oo ku taala duleedka magaalada Laascaanood soo dhawaada walaa Shaafici ku soo dhawow balbalaarshe production oo halkan inagu timi haday noqoto jid hore ku soo dhawow baan ku leeyahay barnaamijka waan dhawahay walaal Yaasiin bismillaahir rahmaanir rahiim artu in badan nagala qayb qaadatay ciidanka qaranka dhiirigelin haday tahay iyo haday diila tahay iyo haday waxaan ku yiri dhax socod tahayba in badan baad noo timi wadana joogtay ariyaabeen wadana joogtay meel laga ma tagin ma sha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin artu ilaahay baa mahadaas kale Yaasiin wada ogtahay xaaladaha amba hawlaha ee ka taagan gobolka Sool in kasto gobolka Sool dad walaalahayna oo Soomaaliland oo waxaan ku yiraahday beedan ka leedahay dad nafi dhiig iyo maal baan u qaybsanayihiin haddana in balaayo kale iyo wax kale ay ku hoos jirto oo adagta gobolka Sool sidoo waxa shalay iyo sidoo maanta yahay ay laba faraq u dhaxayaan artu dadka walaalahayna waxaan ku ismahayno awlaad kale isku ma hayno sax kale isku ma hayno dadkan sayna wada ogtahay Yaasiinow arkay ka yimaadeen iyo waxay wadaan iyo waxay halka ka socdaanba gobolkaas oo gobol Soomaaliland صح ورنمن walaalahayna صح wadadkulkeena صح waabtiyaasheen صح waawiyaasheen صح hadii beedankeeda leeyahay niman la yiraahdo al-shabaab oo kaybi meesha ba gobolka soo galay sida uu war socoto ku dhumaasanaya horena aad u ogeyd waxay ka sameyn jireen amba waxay ka dhaxwadeen hadeerna soo xoogeystay oo waxaan la dagaalamaya maanta yihiin anu bahanta ma oran karno weeyaan bahante harta ma oran karno maanta dagaalkan ugu socda war bahante dagaalkan ugu socda waa al-shabaab يهون waxaan garanayn iyo qurun baa meeshii soo galay sax waxa dagaalka iyo balaayada wada ee nimanka iyo dalka tulkeena ee gobolka Sool degana sax barkiciye maanta hartu waa nimanka sax alxamdulillah rabbil caalamiin hadeer waxaan ku yiraahdaa hawsha socotana wada ogtahay markasta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland difaac ku jira sax waan weerar la qaaday amba maalin aan weerar qaadnay haba yaraatay hartu ma jirto sax markasta amba goob kasta goor kastaba ciidanka qaranka goobtiisa lagu yimaadaa sax lagu wax la yeelaya ciidanka qaranku uu ka jawaabaa sax sidoo kaga jawaabaa uu ka jawaabaa aniga aba asaati wada geed maalintii dhaweeyay airportka maalintii dhaweeyay ay dhaxda loo galeen waan iska soconaynay ay wax duulaana ma lahayn kolayaan iska ahayn booyada biyaaba nala socday nimankaas way soo yaaceen iyagoo soo yaacaya ayay hadana gaarigeeda taayirka kaga dhufteen ayay hadana markii ciidanku waliba isagoon xabad ku ridin oo dabada u yar jeediyay ayay janta fagaxa ilaa qaar ba gabadhii ka dhacay oo bartii kaga dhacay Shaafici in dooreenka intii dagaalku socday waxa u dhaxaysay geeriyo nolol sababtoo ah gaariga maraad gaariga xawligiisa aad dhaafinaysay mar ciidan ku saarnaa mar aad jiido hore ka soo kaxaynay ka soo jiidaysay gawaadhi mar aad maxay heetooy ciidanka barbar socoto aad taakulada barbar socotay mar aad dhexda geynaysay mar aad burco alaab wax lagaaga dirayay intaba waxaan maleynayaa inaad habeen qura seexan balmanaya u adeegaysay qaranka Soomaaliland horta waxaan ku weydiiyay Shaafici goorma horta maalintii kugu darneed bal horta sheeg Yaasiin maalintii ugu darneed waay hartu dhacdooyinku kala badan yihiin sax maalintii ugu darneed waxaan ka baxnay meel og la yiraahdo sax wad garan salka duubi ma jirtay sax taliski markaan mareynay meesha la yiraahdo Igori bay hartu
وحصور الردين صح ومقالة هو ده الحين اللي قال ومقالة دحلي ها صح دارت لما كواس كتقانايو سيدو دبدي wax ka baran gul harto Allah ma abuurin صح كودي صح de waxaan ku yiri markiiba shanta fagax sidii lagu yaqaanaydi bismillah bay sii daayeen hay ceebtood ma laakiin waadadu صح waadadu taasi صح laakiin niman ciidanka qaran wax ka qaadi kara anigu ma aha ciidanka qaranku waxa halka jiida uu chief iyo joogiyo wax kasta loo diiday roobku ku helay dhaxanta ku helay sabacad ku helay صح وسيو dadkooga iyo dadkooga waa u difaaci lahaa wixii ku soo duula ee kala nooca ee huwantu ka mid tahay noqoto si kastaba waxa la waxa dalka amnigiisa khalkhal gelinaya inay ka jawaabaan bir laba lagu qabanaya gacan bir leh waa lagu qabanaya waanu ka jawaabay ciidanka qaranku sax waanu ka jawaabaya ciidanka qaranka dhamaantii halka ma ka salaamaya waxaan kaloo salaamaya shacabka Somaliland meel kasta way joogaan dibad iyo gudaba dhamaantood waad baan u salaamayaa aad baan u salaamay waay waxaan sababtay tahay shacabku wallahi dawladda aad iyo aad bay u gacan siiyaan haday tahay dhiirigelin hadii ay tahay wax kasto oo wax qabadaba alxamdulillah shacabkan halkan aad baan uga salaamay dil iyo dibad meel ay joogaan ba inta samaanta jecel ee wanaagsan wixii kale waxaan ku yiri waxba inaga ma qaadi karaan ma yeesino qarankooda deen nicmna waxa weeye waxay tirayaan baayaan ka badan waa aad iyo aad dadka halkan degan waa haday noqoto imka marka oog laga bilaabo ilaa laascanood dad isku mid ah degan waa in iyo abtigii baa degan lama oran karo laga soo heli maayo inaan aan abti loo hayn iyo inaan aan abti loo hayn waa dad isku wada degan talabaad iyaga waa lagu soo dhaxluumanaya waxa ku soo dhaxluumanaya niman aan iyaga loo danaynayn oo doonaya inay noloshooda ka xiyeen oo inay noloshooda ka xiyeen wax ku garanaysa wuxuu ka imanaya Muqdisho agteedii ninka Muqdisho agteedii ka imanaya doonaya Laascaanood inuu madfac la dhaco waxa la wax kaga soo reegaranay wax alla wax kaga soo horeeya magaalada Laascaanood sida ogtahay loo dhisay ee wax qabadka loo sameeyay ee waxaan ku si walba la yiri maanta gacantoodii ku baabiyay gacantooda bay ku baabiyeen nimanka ku soo duulay uma danaynayaan صح dadkii deganaa oo ka qaxeen oo ka barakaceen sida ogtahay Yaasiinow صح Somaliland lama oran karo Somaliland baa dimisay amba Somaliland baa wax yeeshay waayo waxay gacantooda wax ku yeelaan intay la dhacaan hoobiyayaal iyo madaafiic magaalada dhexdeeda markay ciidanka ka daalaan ay magaalada duqeynayaan waxa la waxay magaalada laftirkeedii waxa la waxay uga jeedaan iyo waxa la wax magaalada kaga jira baanu garan la'aanay baanu yaabanay anagu horteed adiga ku haystay shaafici aniga waxay ku maqaalaa in wararka ka soo baxaya gobolka Laascaanood imka aan ku helayno inay heetoy ay kala jabeen dadkii deegaanka u dhashay ay ka soo horjeesteen dadkii kale maadaama waxbana aanay qabanayn waxna aanay tarayn ciidanka halka joogana aanay maalin qura ee halka u dhaafayn markay soo weeraraan yaacayaan waa kuwa ka yimid hada Garowe iyo gaalka waxa maraya bahashi meesha la yiraahdo macal jubooyinkii dhexe baa maraya sax Laascaanood oo ku jira sax dadkan dhulbahantay artu sida ogtahay hadeer colaad ay wadaan Somaliland way rabaan waanay doonayaan laakiin waxa ka hor taagan waa niman ku soo duulay waa laga awood batay gobolka Soomaaliya waa lagu soo duulay sax magaalada waxay la circiiraysaa waa al-shabaab iyo Puntland iyo qof aan u danayn oo dan kala hayn shacabka magaalada xitaa laftigeeda ku leeyahay magaalada dhexdeeda aad iyo aad way jirtaa Yaasiin wada ogtahay sida ogtahay waxaan ku maqaalaa waliba in maantadan xalay toole la isku qabsaday iyaga dhexdooda dadkii deegaanka wax ku xanaaqeen dhinac uga baxeen waayo 10 jeer ayaa dagaalka ay kaga baxeen baa la yiri nimanka soo duulay oo meelihii dagaalka ka dhacay ay Somaliland soo weerarayeen ay kaga baxeen dadka halka ku dhintayna waxaan leenahay horta Ilaahay ha u naxariisto wadadkeeni inta noolna waxaan leenahay inta dhaawacantana Ilaahay ha shaafiyo inta mabdiga gaarka la siiyay waxaan leenahay war ka soo noqday walaalayaal ciidanka qaranku way ni diyaar mar kastaba way ni diyaar waayo lama arag diyaarad intay ka kacday magaaladeedii hooshaysa horta lama maqal ciidan magaaladiisii degan oo adala duqeynaya oo la dhacaya madaafiic lama arag ciidanka Somaliland intaan arkayno way isxakameynayaan way intaan arkayno iyagu wax la dhacaya
niman diirayana maaha waayo waxay arkaan dadka ku soo duulay inay dadkoodii ku dhex kabanayaan waayo masaakiintii dadkii magaalada degnaa ay ku dhex kabanayaan bal kula tahay in kuwan meesha ku soo duulay inay laftigooda markay dagaalka galaan dadkii dib ugu soo noqonayaan way yaasiin way dhacaysaa sax saad og tahayba dagaalku siyaabo badan buu laascaanood uga socdaa sax dhexdoodii dadka dhexdoodii gobolkii sool kuwa ku soo duulay baa laynayaba saad og tahay yaasiin oo hoosta ka laynaya sax saa haddana la leeyahay Somaliland baa waxyaalo wada oo wax laysay biyo kala dheeri Somaliland hartu dan ay u wada mooyaane dan ay ka luminayso marnaba gobolka sool ma jirto sax intii ay gobolka sool la deganaa ciidanka qaranku deganaa amba Somaliland ay gacanta ku haysay wax qabadka loo sameeyay amba sida horumar loo gaarsiiyay hartu ismalihi gobol kale oo Somaliland ku yaala oo wax loo qabtay sax inta iyada loo qabtay waan arkaa laamiyada aad baa loo qabtay aad iyo aad baa loo saaray laamiyada si kasto tahay waxaan ku yiri gobolka sool laami haday noqoto haday MCH noqoto haday caafimaad noqoto haday iskuul noqoto haday waxbarasho noqoto haday saldhig noqoto haday ciidan noqoto haday nabadgelyo noqoto aad baa loo dhisay aad sax ismalihi hartu gobolka sool marnaba wallaha kaday sax dhaliil baan halka ka jirtay ismalihi maanta sax habasa ahaatee haddana niyow waxaan ku yiri waxa fidmada marka la wado dadka abuuraya uqaashoodii ninkii waad ogeyd bahalkii la oran jiray garaadkii gala dagaalka dagaalda wiil baa ku dhashay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho danna kama lahayn sax waxa la yiri dhowr iyo 30 sanadood iska maqnaa oo Yurub ku maqnaa sax hadeerna uu soo galo gala dagaalka uu leeyay sax waxaana isagu baa ka dambeeyay islaan bas abaabulaya amba waxaan ku waa laga yaabaa waayo dhay waxaad arkaysaa dadkii maanta hablihii reesol anu isma lahayn hablaha saaq qoxoonti galaya ama qoxoonti la qoraya ama kaar caayda la siinaya waayo waa dad waxa hayeen muwaadiniin oo dadkoodii iyo dalkoodii jooga iyo dadkoodii la jooga maanta la qoxoonti ayay wax laga yaabaa xerooyinka ku jiraan ay u qaxeen masleedahay halka ay u qaxeen wax dhaamo way ka heleen hadii hay'ad noqoto haday noqoto waxa caafimaad loo qabtay masleedahay ma ismalihi sax ismalihi yaasiin oo qofna waxaan ku yiri dadkiisa iyo dalkiisa wuxuu dhaataa ma jirto gobolka soolna ardadkii ka soo qaxay haday Hargeysa tahay iyo haday Burcad tahay iyo haday Berbera tahay way inala joogaan sax waana inala degayn sax cid wax yeeli karta amba cid la hadli karto oranka gobolka sool baad ka timaadeen ma jirto waayo samakaab ma dhacayso samakaab baa ku arkay meel kasta cadays baa ku arkay way degayn Ligori baa ku arkay oog bay degayn sax meel kasta oo aan degayn ma jirto sax waxay degayn Burco sax Berbera kula yaalaan meel kasta oo waxaan ku yiri gobolka Somaliland kamida way yaalaan cid la hadli kartaana ma jirto dadkoogii iyo dalkoogii la joogaan iyo ciidankoodii wixii halka wax ka dhaca artu ceeb inaga gaaraysa Somaliland ka gaaraysa ma jirto lama oran Somaliland maxaabiis beelaysa sax Somaliland maxaabiis wax yeelaysa sax ciidanka qaranku wax kasto oo gacanta ku soo dhagaa maxaabiis soo qabtana sidooday u dhaqaaleeyaan sax askariga Somaliland sidii loo maxbuuska xaga laga soo qabtaba waa isku markaa waa isku mid sidii askariga loo dhaqmayay ayuu baa loo dhaqmayaa maxbuuska loo dhaqmayaa sax lama oran karo taadi bay Somaliland sameysata habasa ahaatee artu intaynu ku noolnahaynaa waa inta sax weerar aynu qaadno wali Somaliland leeyahay weerar bay qaaday oo maanta taa weerar ku kacday ma jirto lama sheegayo ma dhacin sax markasta difaac bay ku jirtaa xerooyinkooda ku sugantay fadhiyadooda sax markasta iyada weerarka ugu soo qaada iyadu waa difaacun kasta ama goob kasta ay joogaan Shaafici adaa ku haystee iminka waxaan ku kulanay halkan samakaab maxaa shaqaadu timi sawaad dhaafaysaa xagga hore cadaan tagaysaa ilaa laascaanood gudee may waa laascaanood waan ka yimi hadda halkan shaqaan u joognay waanu degannahay ilaa iyo laascaanood ilaa iyo intan badda ciidanku waa degan yahay xerooyinkiiba ah sax marka ilaa 50 xero waan arkay 50 meelood oo kamida inta laascaanood harar ku harareysan oo ciidanku yaalo waana yaabay marka soo eegay laamida ilaa waan ka soo dhamaan waayay ilaa
oog aan soo gaadhay ciidanku waa taxnaawo ciidan qaranku aad buu meel kasta u degan yahay sax meel kasta aad buu u degan yahay amnigeedana u sugaya hadday noqoto waxaa naf iyo maalba ugu furayaa sax alxamdulillahi rabbil caalamiin wadiga arkaysaa ka jawiga balaayana ma hayso sax waxba dagaal laguma socdo xaaladda saaka waa nabadgeliyo dalku sidiisa u shaqaynaya iyo si ka daranba sax gobolka Sool waxaan ku sheegayaa inay sidii ay ahaan jirtay iyo si ay ka wacanba ay ku soo noqon doonto waxa ku jirana laga saari doono sax oo laga cuudin doono aad iyo aad al-shabaab baa ku soo duushay baan anagu ma lihin meeshan reer Sool baan la dagaalamaya yaasiinow dagaal reer Sool meeshan kama socdo mana jiro صح dad reer Sool ka aqlay batay amba ka awood batay ayaa barashar ku culays cadaadin baa lagu hayaa cadaadin aad u fara badan Shaafici waxa kale oo ku wajinaya bal ka waran sida maartay badeecadaha ama safarada sida u kala gooshayaan inta u dhaxaysa Laascaanood iyo ilaa Burco kale bal ka waran artiyaasiinooda markii hore laamidu xoog bay u socon jirtay صح oo de wadanku sida nimanku yahay ma ahayn صح hadeerna wuu socdaa صح oo waxaan ku yiri waxa gabadha ku timid waxa qabado lagu keenay amba lagu hayaa midna ma jirto صح ka Burco ka soo baxaana toos uu galaa Laascaanood bagaro meel ku socdo صح wax la culays lagu hayaa amba caadan lagu hayaa amba ciidanka qaranku uu leeyahay ka noqda صح ma jirto siday u socon jireen bay u socdaan صح har iyo habeen oo ku wadada marayay u tahay صح in kastoo basaska yar yara ay ka istaageen laakiin wixii gaadiidee kala ay maray jiray haday dawo noqoto haday raashin noqoto haday wax kasta noqoto haday arin noqoto waa saameyn u socotaa laamid waa soconaysa waa saameynta micnihii wuxuu ma yaraanaya socodku ma yaraaday laakiin wax istaagay oo iska istaagay oo ma jiro laamida ma jiro caqabado ku soo ma jirto صح afci waraysigayni maxay hatay akay yaa kula jooga xirada ila jooga nin saaxiib aan nahay oo Faysal la yiraahdo haye Faysal Ismaan Jaamac صح oo Faysal oo ciidanka kamaandoosta kamid ah kamaandoosta gamadiid oo saaxiib nahay tada gamadiid salaam alaykum dhufsad kamid ah dhufsade Faysal baa yiraahdo Faysal Ismaan Jaamac Faysal soo dhaw saaxiib Faysal soo dhawow ayaan ku leeyahay Faysal السلام عليكم xogaal baad u tahay gobolka Sool inta hore waa joogtay wax laga yaabaa inta hore inaad joogtay hore la tasno intay ciidanku halka jooga waa joogtay ka waran waxaad halkan uga diri lahayd dadka reer Sool haday noqoto macal garaadada laftigoodii haday noqoto waxaan malaynayaa inuu saasaan nabadeed ilaahayna roobka uu shubay inay soo eegtahay ka waran maxaad oran lahayd waxaan u dirayaa reer Sool horta marka hore waa walaaladayo dagaal wiil baa ku dhinta صح wiil kuma dhashay صح waana dad ehelo oo walaala abti awow weeyaan صح Soomaaliduna dhaqan soo jireena oo nabada oo nabadgelyo ayay leedahay صح waxaan ugu baaqayaa reer Sool waxaan way iska dhamaanayaan صح waa nabadgelyo ku dhamaanaysa صح dalkana waxa uu harayaa kii deganaa ilaha ayaa u haraya صح nin dhintay waxba waxa laale aakhiradu soo saagay waxa laale wax halkaa waxaan ku u yaala ma jirto iyagana nabadgelyo ayaan ugu baaqayaa haday garaad tahay iyo haday jamci shacabkii tahay waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada dhibaatada ilaahayna hayd ka kor qaad صح waxaan idinku baaqayaa garaadada wixii dhacay war dadka inta dambe hala daba qabatay hal badbaadiyo halkan waxaan ku saafmeelaynaa barnaamijka ayaro aan la yeelanay dhalinyaro ka mid ah ciidanka qaranka Soomaaliland ee jiida hore jooga waan kula kulmay Tuulo Samakaab ay joogeen markaa oo ay hawlo shaqo u yimaadeen waa Shaafici Hartoob iyo Faysal Ismaan waxaan leenahay aad baa mahadsantihiin anaguna waan iga gudbinaynaa maxay tahay fariinta aan noogu dirteen
gobolka sool iyo dadka haye waad mahadsantahay shaafici hartoob aad iyo aad baa waad mahadsantahay haye nabadey salaam